Dr. Maxamed Sheekh Axmed ayaa ku guuleystay kursiga 86 ee Golaha Shacabka kadib doorasho goordhoweyd ka dhacday magaalada Muqdisho markii uu tanaasulay Musharrax Cabdirasaaq Buqaari. Ergada doorashada oo ka koobnayd 98 xubnood ayaa si gacan taag ah u doortay Dr. Maxamed Sheekh Axmed kadib tanaasulaadda musharrixii la bartamayay. Kursigan ayaa ka mid ah kuraas uu doorashadiisu celiyay guddiga doorashada heer federaal, kaas oo markii hore ku guuleystay Fahad Yaasiin, agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, ahaana la taliyihii amniga qaranka madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Fahad Yaasiin ayaa dacwo u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka, taas oo uu ku sheegay in guddiga doorashadu ay si sharci darro ah ugu diideen kursi uu ku soo baxay oo doorashadiisu ay bishii Febraayo ee sanadii hore 2022 ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Laakiin maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa diiday inay qaado dacwadda kursigan, waxayna bayaan soo baxay 4 Abriil ee sanadii hore ku sheegtay inaysan awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada ee baarlamaanka 11aad. Fahad Yaasiin ayaa aqbalay go'aanka maxkamadda.